Maxay tahay muhiimadda barashada joogtada ah iyo aqoonta? Aqoontu waa furaha horumarka. Qofka aqoonta leh wuxuu fahmaa fursadaha nolosha iyo sida uu uga faa'iidaysan karo. Barashada joogtada ah waxay kordhisaa xirfadaha. Qofka markasta wax barta wuxuu noqdaa mid xirfad badan oo karti badan leh. Waxay kobcisaa maskaxda. Barashada joogtada ah waxay ka dhigtaa maskaxda mid firfircoon oo hal abuur leh. Aqoontu waxay kordhisaa kalsoonida nafta. Markaad wax barato, waxaad dareemaysaa awood iyo kalsooni aad go'aano sax ah ku gaari karto. Waxay abuurtaa fursado. Dadka guuleysta badankoodu waa kuwo markasta wax cusub barta. Waxay helaan fursado horumarineed. Waxay caawisaa inaad la qabsato isbedelada. Dunida maanta, isbedelada teknolojiyadda iyo shaqadu waa kuwo degdeg ah. Barashada aqoontu waa maalgashi noloshaada. Maaha kaliya inaad xirfad barato, laakiin waa inaad barato fikrad cusub, aqoon iyo tababar joogto ah.